bukaano gaariya 102 oo laga kala keenay qaar kamid ah gobolada dalka iyo dalalka dariska aynu nahay sida Ethiopia iyo Kenya gaar ahaan deegaanada Soomaalida ay degto ayaa fursad qalliin oo lacag la'aan ah ka helay isbitaalka Kalkaal ee Muqdisho. qalliinada ay heleen bukaanadaasi ayaa kala ah bishimaha iyo dhanxanaga iyadoo dadka qalliinada lagu sameeyay markii hore ay ku adkeed in qalliino lacag la'aan ay helaan. qaar kamid ah waalidiinta dhalay caruurta qalliinada lagu sameeyay oo ka hadlay munaasabada xiritaanka qalliinada uu sameeyay isbitaalka Kalkaal ee Muqdisho ayaa sheegay in dhankooda ay ku qanacsan yihiin in caruurtooda ay helaan fursad noocan oo kale. nasiib wanaag iyadoo buulkeedii ku jirta ayaa telefoon ba hadda wada haystaa magaalada ayaa la yiraahdo haye waa isbitaalka Kalkaal xagee Muqdisho la yiraahdo meesha kala hadlayo baba yaabtayba maxaa dhacay gabadhaada faruuran ee heblo la yiraahdo maalin heblo isbitaalka Kalkaal keen ayaa u saartay magaalada Baadhida waa ku dhibana hadda islaan kale oo hadda waayeel continuation ka lagu tilmaamay ayada laftigeeda yani maaragtay dadkii waxay aan u qayb qaaminay markii uu tegay baadii hadda waxaa soo socda ilaa 150 wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya oo goobjoog ka ahayd munaasabada lagu xusiyay gabagabada qalliinada ay sameeyeen dhaqaatiirta ajaanibta ee ka kala yimid dalalka qaar iyo kuwa Soomaalida ayaa sheegay in isbitaalka uu qabtay shaqooyin badan oo muhiim ah iyadoo la taliyaha wasaaraddaas uu Xuseen dhankooda ay garab istaagi doonaan sidii loo heli lahaa dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku takhasusay qalliinada. 300 dadka waxay iska dhigaan 300 qof bidaweynaysa qafaruran ma wax sahlan ba ma wax aynu mar walba dibadda ka sugayno in laynaga taageero in shaati loo geliyo miya ma suurtoobayso dadkii hawsha qabtay iyo dhaqaatiirtii ajnabiga ahayd noo timi labadaba waxaan u celinayaa mahad labada hay'adood Ismail iyo Belarus waxaan iyana u helinaynaa mahad weyn waana abaalkoodana waa ognahay. maamulka isbitaalka Kalkaal ee Muqdisho ayaa sheegay in dhankooda ay si laba jibaariyaan qalliinada lacag la'aanta oo ay siinayaan dadka danta yar ee ku nool caasimadda iyo guud ahaan dalka. agaasimaha isbitaalka Kalkaal Foundation ayaa Xuseen muhiimadoodu ay tahay in Soomaalida ay isku tashtaan oo laga maarmo gacmo shisheeye iyo sidoo kale in dhaqaale fara badan bukaanada ay uga baxaan dalka dibadiisa. hay'adda oo Kalkaal Hospital Foundation waxay baatida la sameysay hay'adda Foundation si mishinada iskaga kaashadaan waxaana barnaamijkan abaabulkeeda iyo qayb ka ahaa fugeynteeda soo isbitaalka oo door weyn ka qaatay qalliimada oo sameyn lahaa inuu joojiyay markii qalliimada ay socdeen wuxuu kaloo isbitaalka ku gaaray qalliimada furuurka iyo dhanxanaga asagoo isbitaalka sameynaya inuu haddana u dhaafo qaybta foundationka ummadda Soomaalida free looga dhigo. isbitaalka Kalkaal ee Muqdisho ayaa toddobaadyo ka hor sameeyay qalliino jilbaha iyo sinaha iyadoo qalliinadaas ay ka faa'iideysteen dad badan oo ay ku adkeed markii hore in ay aadaan dalka dibadiisa. Maxamed Cabdi Xasan Goobjoog, Muqdisho.